السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And tirooyinka waxaan rabaa how to read and write and numbers. sida tirooyinka loo akhriyo loona qoro. Saad meesha ka aragtaan waa idiin muuqdaan. Waxaa jira 1 ilaa 10 dhib ma leh. 1 ilaa 10 dhib ma leh intaan yartaa. 1 ilaa 10 Soomaalidu iska taqaanaa. 1 to what? 1 to 10 waa iska yaqaanaa Soomaalidu. Ilaa iyo 10 waa iska yaqaanaan. 1 ilaa 10 marka waxaa ugu horeeya 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 7 8 9 10. waxaa laga yaabaa inuu jiraa qofku war muxuu ku falayni kuwaxaan yaryarka oo hadda keenay maxay ahayd. waa faa'iido badan baa ku jirta. dad badan way weydiin caruurta waalidku waxay rabaan inay la socdaan. marka waxaan rabaa qofaan tirooyinka akhrin karin halkaan meel inuu ka bilaabo bayska. tirooyinka ardayda badan ama akhri karaan. tirooyinka waaweyn oo dhan lama akhri karo. waxba isku xirxiraan. marka waxaa la rabaa waalid ahaan in hadda baratid ood bartid ilmahan. markaan soconno 10 hore waxba ka sheegi maayo. spellingkooda una baro 8 kaas oo kale si loo spelliyo waa muhiim inaad baratid oo ma kulligood mid walba waa muhiim kuwa xoogaa aad moodaa inay adag yihiin. haye 11 ilaa 20 waa sidii oo kale. 11 ilaa 20 waa sidii oo kale ayakana waxay sameynayaan 11 waa taas. for example spellingkeedu waa easy. 12 xoogaa spellingkeedu waa adag. spellingkooda iska baro. xarfo la isku qabtay 6 iyo 10 oo kale 16 7 iyo 10 17 8 iyo 10. muhiimada spellingkooda kaliya ayaa iska baranaysaa. kor baana ka akhriyaysaa. 20kan eray iyo in yaroo soo socota waxay noo suurtagelinayaan 100 xaraf oo dhan inaan kor ka akhrino. waayahay inta soo socota waa maxay? waa marka 10 iyo 20 iyo 30 waa 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. halkaasi waxay noo keenaysaa 100ku inaynu si fudud aynu tirooyinka hadhow suuqa qabanno. intaas wayba kunkii ayaa noo dhimanaanaya haddii u batay 10,000 iyo xalamid aynu aragno iyadoo la isku qabtay. halo marka waxaa la rabaa inaad qaybta waa aragtay inaad dhammaystirtid. waxaa la rabaa inaad dhammaystirtid oo tirooyinkaan akhridid ood ka bilowdid 23 marka 23 maxaad leedahay? waxaad leedahay 23. waxaad leedahay 23 waa 23. waayahay hay maxaa ku xiga? qiyaas tirooyinkan oo dhan oo ku yar aamusayaa ama jooji videoga. marka hadda adan kaa rabaa. ready set go. 35 soddonku waa 30 maxaa leedahay? 5. look here 5 ka day 35 sidaa isugu qabanaysa day 40 60 40 markay noqoto ku xiga 40 iyo 60 gaar baa u qoraysaa kiina gaar baa u qoraysaa. tan ku xiga day maxaa ku xiga 57. look here waa 50 iyo 7 waa 50 waa 50 50ku 50 todobaduna waa 7 marka 57 bay isku noqonaysaa. 60 maxay noqonaysaa? 68 60 halkaa waa x 68 60 maxay noqonaysaa 8. mid walba spellingkiisa hore usoo baratay kuwaan waa inaa qori kadhaa. 79 70 iyo 9 isku qabanaysaa day 9. haye 84 baa leedahay. 4 maxaa ugu dambeeya? 92. look here fiiri qalimaantan kalarka ugu kala muujinayay inaad aragti kaa ugu horreeya mooyaane inaad laba kalar waxaan uga dhigay inaad aragtid inay laba wax loo isku qabtay tahay. marka ii sheeg de waa hawshaa fudud. marka waxaad samaynaysaa laba kalar kolba kama dhigaysa aduu weelata hal kalar bay ahaanaysaa. halkaasaan joojinayaa. qaybta 10 markaa gaadhid waxaa la rabaa inaad waxaan dhan taqaanid insha allahu tacaala. tirooyinka waaweyn oo dhan inaad taqaanid caruurta aad bari karid. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.